waxaan u baahanahay waa maxay cibaado tiro badan oo qofka uu sameeyo waxaa ka muhiimsan dhowr shay ayaa ka muhiimsan. kow, ikhlaas, shayga aad sameynay liajli illaahi inuu ka ahaado numberka koobaad. numberka labaad wuxuu yahay qalbigaadaas inuu nadiif ku ahaado, qalbigaadu inaad dhowrato. ragga suufiyada maxay oran jireen 20 sanan albaabka qalbigayga hortaagnaa yidhaah san waardiyeynayay qalbiga shaydaanku inuu dhan ka soo galaan ka waardiyeynayay 20 sano ayaan qalbigaa hortaagnaa. rag baa yidhi suufiya maxaa loo baahan yahay inaad horta ikhlaas camalkaada ka dhigato, qalbigaadaasna aada ilaalido oo aadan dadka ilaahay iyo khalqiga ilaahay xumaan ugu qaadin. sababtu waa maxay? dhanuu bilmuuminiina khayran, muuminiinta khayr u maleeyo yiri nabigu sala allahu calayhi wasalam. aduu khayr xitaa kuwa ku xumaynaya markaad xaqiiqsato haddaad ixsaan u sameydo wuddiya ayaa qalbigooda ilaahay gelinaya, adigiina mardaad ilaahay iyo ajira ilaahay kuusii siyaadinaya. qodobka saddexaad wuxuu yahay aklul xalaal. qofka waxa jadiinkiisa ama carabkiisa taabanaya inuu ka taxadaro, laa siyama fi hada zaman aakhiru zamaanka xalaasha oo qofka cuno. haddii qofka uu sidii malaa'igta u cibaadaysto laakiin uu xasad qalbigiisii ku jiro, maxaa la yidhi alxasad shariif yaakulu alxasanaat kama taakulu naaru lxatab. xasadku xasanaadka wuxuu u cunaa sida dabka ay qoryaha uu cunaayo qallalan oo u cunaayo. macnaata waa maxay marka? qofkii waxaa looga baahan yahay camalka tirada badan oo allah mahay waxaa ka muhiimsan gurigaan horta nadiifi, alaabna wixii hadba aad soo yaro dhigan karto iska soo yaro dhigo. laakiin guri wasakh ah wax cibaado kastoo aa keento waxba kaagama siyaadayaan. marka koobaad waxaan u baahannahay waa maxay? waa qalbiga in la nadiifsado, camalkana ikhlaas oo ahaado, qofkuna uu ku dadaalo jadiinkiisa waxa maraya xalaal inay ahaadaan, kaful adaa dhibkiisana laga nabadgalo, carabkiisa iyo gacantiisa intaba adiyadiisa laga nabadgalo. maalinkii qofka uu intaa helo waxaa hubaal ah inuu gaarayo mardaadka ilaahay biidni illaahi bibarakati rasuul sala allahu calayhi wasalam. maqaamka aan caawa joogno oo ahlu beytka lagu xusaayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaanu laku laasimiyey xubbiga nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam. jacaylka nebiga waxaa soo gelaya intuu nebigu jeclaay oo ahlu beytkiisa ay asaas u yihiin in la jeclaado. jacaylka nebigay ku imaanaysaa sala allahu calayhi wasalam. jacaylka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ma taam noqonayo ilaa ahlu beytkii nebiga aad jeclaato sala allahu calayhi wasalam. sababta waa maxay? ahlu beytku waa xidigaha dhulka, hadday ka dhammaadaan barakadii oo dhan ay ka dhammaanayso. ilmihiina waxaa u dardaarantaan uu yihi nebigu sala allahu calayhi wasalam oo aada ku tarabiyeydaan 3 khaslo ku tarabiye yiri nebigu sala allahu calayhi wasalam. xubbiga nebigiina ku tarabiye yiri nebigu sala allahu calayhi wasalam. jacaylka ahlu beytkana ku tarabiyeeya, qur-aanka kariimka jacaylkiisana ku tarabiye yiri nebigu sala allahu calayhi wasalam. ilmaygaada markaad 3daas nebigu sheegay ku barbaarido oo uu nebigiisa jeclaado, ahlu beytkii rasuulka uu jeclaado sala allahu calayhi wasalam, oo uu jeclaado qur-aankii kariimka ahaa, meel shaydaan ka soo gala arki maayo. haddaad laakiin maantoo dhan aada rabto ilmagaadii inaad u dadaasho ee aada isagii duminayso, doqonnimay kugu noqonaysaa. ilmaygaada hantidaada ilmaygaada ku dhis, u fiirso, ilmaygaada hantidaada ku dhis, waktigaada ilmaygaada ku dhis, ee hantidaada iyo waktigaada ilmaygaada ha u dhisin. waa hadal wey. hantidaada iyo waktigaada ilmaygaada ha u dhigin meel. haddaad dhahdo maanta akoon aan u furo ilmagayga, guryo waaweyn aan u diyaariyo, beer aan u diyaariyo, gaariyaal aan markuu dhintaan waxay shinsadaan baan uga tegayaa. waxay shinsadaan baan uga tegayaa. salaadii tukamaa, xirfad uu yaqaano oo ku shaqaysaa ma jirto. maalinkuu soo weynaaday oo gurigii ka bilaabo waa faasax.
beertii u faasax kii kaloo faasax خلاص كل شيء مرة بنانكو كسو استاج كل شيء بنانكو كسو استاج أو أديك وكل جديد وكسر دكتاتين وقتها يسقول لكن جديد بقى مصامرين ما بحسابين عيبا تربية سن أو إسودي كرا أو إسهاجي كرا إن أكدم تاكو وناكسن وأنشرين هيسن مركا أكدم لهاد مد فاسقة أو فاجر أو خمرة معاصدة آداية oo hanti kasta way hantidaas ku fasahaadaya Umar bin Abdul Aziz muxuu yiri markuu dhimanayay baanin u yimid wasiirada kamid ah wuxuu ku yiri ilmahaada maxaa uga dhimanaysaa waxa uu yiri Ilaahay rasuulkiisa uga tagaayo warniyo waxaas inta u kaadidin ana hadda lacag inta leeg waxa la yiri markii la xisaabiyay waxay u dhigantay malaayiin dollar oo maanta joogta oo inta oo kun oo dirnaar aan kaaga kugu hibaynaya eega aqbal si ay dhaxalkoodii u noqoto hantidaas dadkii aad ka bililaqaysatay si walaalo u celi waxa uu ahaa nin wasiiraha lagu xamanayay inuu beera iyo dhul oo salahayn oo bililaqayst hantidaas dadkii aad ka dhacday u celi hantida ilmahaygu laba nin waayo waa laba qof saas uga jeeda labada nin نواقف إلهي رسول كيس أطيعي أنا جاي ما بعنا إلهي رسول كيس أبعيه قف نواقف إلهي رسول كيس كفا سقابي وكعاسي كاس وحور إلهي رسول كيس عاسينا هنتو أو عسيان كيس أكال ما يستأغمد لمن عيو هنتو أو عسيان كيس يحمانتيس أكال ما يستأغمد لمن عيو مت كان كلنا hanti aniga eegama baahna Ilaahay u baahan yahay imaamkii qisada warinay wuxuu yiri waxaan Ilaahay ku dhaartay wuxuu yiri waxaan marqaati ka ahaa oo aan taagnay wiil sagaal wiil horta Umar bin Abdul Aziz dal xaafid quraan ayagoo ka dhintay sagaalkii wiil waxaan marqaati ka ahay oo aan taagnay labadii nin ee maalinkaas wada hadlayday oo Umar bin Abdul Aziz iyo wasiirka umawiyiinta kala ah laba wiil ay dhaleen ayaan u kala taagnaayo taariikhdooda wiil Umar bin Abdul Aziz dhalay oo waxaan u taagnaayo hanti meel oo kala dhigay inta waayay 100 faras oo maalin ku yabo hayo hal maalin oo kali ah jihad fi sabiilillah 100 faras oo sadaqeeyo sarajkoodii koorahoodii oo saaray seefahoodii oo diyaariyay markaas uu naadiyo man yujaahidu fi sabiilillah faras kan yaa kora Ilaahay ku soo jihaada diinkiisa kale umada difaacay waa 100 gaari oo maanta joogta waxaan u taagnaayo wiilkii malaayiinta dollar aabihiis ka dhaxlay oo aabihiis oo laha wiilashaada maxaad uga tagaysaa ilmahaada gabdhahaada waxaan u taagnaayo asoo suuqi Baghdad gacanta horsanaya oo la ii kaalmay waxaan cunam haysto nafti baahi ay uga dhici baahiya nafti kala dhici rabtaa markaas guriga markuu ku jiro waayo leeyahay waxa cun hal isii hantidiisi xagee aaday tumasho خلاص abihi Umar bin Abdul Aziz waxa uu sheegay war wiilkaade gabadhaada ayaga laga rabaa inay mustaqbalkaada dhisaan mustaqbalkoodana dhisaan akhlaaqdooda iyo dadnimadooda dhis waxa daliil kugu ah adigu hantida aad isleedahay uga dhima ayaga oo aad tarbiyadii iyo waxbarashadii aad uga mashquuliday adiga ma aaba kaaga dhint fil ghalib ummadda Soomaaliyeed waxa weeyaan qof tabac u diyaarsan waalidkiis kala wareegay uma badna way jiraan dabcan laakiin uma badna aaba walba markuu ilmihiis u sheekayha qisooyin beer ku la xanuunaha uga sheekeeyo oo leey maalin hebla halkaasan soo maray halkaasan ka soo bilaab halkaasan soo maray adiga rafaada soo marto Soomaa ilmigaadi si uu sarrafaadkaas u marin tarabiyo wanaagsan si waxaad bartaa inuu run sheego oo run loo noqdo ilmigaada bar waxaad bartaa inuu aamin noqdo oo malaayiin dollaris hadii loo dhiibo oo uusan lahayn oo uu baahan yahay oo san taabanay halka lacagtu haday daadsanta oo baahan yahay baahin naftu kala dhacay illa biidni saaxibiha lacagtaas qofkii lahayn u fasixin inuu san qaadanay ilmigaadi waxaad bartaa in uu noqdo qof xasanul khuluq
dabiicadiisu wanaagsan tahay macnaata waxaa ka dhimanaya ilmay qof kastaba jecel yahaba. waayo dadku maanta muxuu u baahan yahay qof aamina aqoon lahu dadku u baahan yahay aamin haddana xirfadda uu qabaha shaqadiisii ay tahay. ilmaygaada waxaad uga dhimataa akhlaaq wanaagsan uga dhimo, kaydka aan ka dhammaanayn taa weeyaan. tarbiyada xasanka ah ayadoo xirfad ku samaysan karaa, hanti ku tabca karaa, reero ku samaysan karaa, ilmihiisa ku biilan karaa. taasi waxaan uga jeeday adibuu awlaadakum calaa 3 khisaalin. ilmihiina waxaad ku edbidaan uu yiri nabigu sala allahu calayhi wasalam 3 khaslaha lagu edbiyo. waxaa lagu edbinayaa jacaylka nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam, waxaa lagu edbinayaa ahlu beytka rasuulka sala allahu calayhi wasalam jacaylkoodaa lagu edbin, waxaa lagu edbin qur-aanka kariimka jacaylkiisaa lagu edbinayaa. waayo ilmagaadii waxaa la rabaa maalinkii marka uu joogo inuu nasiib ku yeesho kitaabka ilaahay qur-aanka kariimka ah, maanta qeybtiisa oo ka qaato oo akhriyo. waa bartay, waa kasoo gudbay, hadda waa bartay, waa dhameeyey ma ahan. waxaa u barahayda waxay ahayd inaad akhridaaba u barahaydo cumrigaada aad ku cibaadaysataa u barahayda. uma aadan baranayn qur-aanka in aad inta maalinkaas wax ku soo maro daruura ma ahayn barashadu. waxa loo baranayo waxay ahayd in ilaahay lagu raadi geliyo, maalin walba qeybtaad akhri karto. markaad xafido waxaa kuu sahlan markaad masaajidka kasoo socoto inaad dusha ka dareerid, markaad bas raacdo ama aad meel kale u safarto inaad sii dareerido kitaabkiiba aadan sugay. jazaakum allah khayr.